waxaan joognaa xilli ay aad u sahlan tahay bannaan keenidda iyo soo bandhigidda xaaladaha qofka oo dhan. muxuu cunay saaka? muxuu cabay casariyihii? xagee buu aaday? yuu la socday? muxuuse doonay? goormee seexday? goormeese soo kacay? shaki ma leh in bannaan keenidda qarsoonidaada iyo dariishada ufurka dadka oo dhan laga dhaxlo dhibaatooyin iyo cawaaqib xumi. waxaa dhacaysa marar badan in qaar maangaab ahi u fahmaan sawir yar ama muuqaal yar oo baraha bulshada lasoo dhigay inuu yahay mid matala dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha qofkaas. markaas baa gabar laga yaabaa inay ku qabsato ninkeeda, nagama farxisid, nooma kaxaysid bannaanka iyo meelaha loo dalxiis tago.